بسم الله الرحمن الرحيم مركب ورئيسة وهذا صحافة ومحسنتين أنا تلقى عن قامنا شير جرائد شركة جرائد وكسابسن دورشة دجاج كبوساسود ومركب ورلوجون ده إني بريد عضو دورشة داس والمدبر كسر شغالين إني مدة أفر برودة أنا هو شيء ده كجرني وحن هل كان قامنا يا صحافة دورشة داس إني دورشة حلال أهين دورشة حق فرد إنا هين دورشة تستر فرد إنا هين وعن كل سببين يا لا سبب درتو ومن سيد الوسط حولي دورشة جودي حمنيه مارت دجانك وقبائل كربين كينان سوا فقص الماهن ضد بدن بالدولد عن ترسو قشي والدولد وحوي إيوه كسر درسته إيوه قضبك لون مرسمن واللي جبيي maxaa xubnaha soo galay meesha waxa ku jiray xubno aan waxa weeye qaarkood dulum loo haysto qaarkood waxa weeye maxkamaddu xataa waanu soo goysay waxa taasi dheer iyo xubno waxa weeye shaqaale ah intaas oo dhan loo nimarsan ma ogola waxa taa ka sii dheer sida ogtihiin sharci dastuuriga ah oo Puntland u yahay dowladda hoose waxa jira wax lagu heshiiyay wax social agreement waxa beero ku heshiiyeen oo cid bedeli kartaa jirin waxa kamid ah degmo kasta waxa loo qaybiyay degmooyinka saddex qaybood degmo A ah degmo B ah degmo C ah degmada A ah waxa loo qonday 7 in la siiyo degmada B daana 20 degmada C daana 17 doorashada biril fiinay meesha dhacayso 9 xubnood baa fadhiyay لو حملوا سايدك وحكوا دري مدحوني هوري دكتور عبد الرحمن فرولة مركو حكوا كهاي حتى ذكرت ماهين وسي أورال وشيء ولو واحد مغلي مركو ماشي كده يقولي لو حملوا حق معها إن بدن بان كدعوني لو حملوا مدحوني قاس مرو بوساسية محمرين عينا هيد مي قران تيدي شخصي هان أنا أكتجي بيرسونالي إيوه ضد إلى السعودة waxaan weydiiyay in xubnaha markaan danayna markaan uu goostay way inay sharaxo waxaan weydiiyay in xubnaha wax dooranaya ay intee yihiin wuxuu yiri 7 weeye 9 ko sharci maaha dastuurkan saas uu ogol yahay annatii waan ku qancay taas ay igu sababtay marka inaan wax weeye is sharaxo oo marka waxa la doorsho xalaal dhacaysa anuu Mareykan baan ka yimi Mareykan waxa weeye meel waxa weeye si cadaalada iyo si nidaamka dimuqraasiya maartay wax lagu kala doorto Puntland markay imaanayeen inkastoo wadan xoogaa burbur jiray yahay waxaan iska maleynayay inay meelaha ugu fiican ay tahay xagga doorashada waxay aad waxaan jecel banaanka joogno meedan kala soconay sidii madaxweynaha loo doortay waxaan aad ugu faraxsanayn hase yeeshee markaan sii dhaxgalay waxaan ogaaday wax badan inay qaldan yihiin wax aad u badan qaldan yihiin oo la moodo in dastuurka iyo sharciga aan la tixgelin 9 xumood baa fariistay xalaal ma midda kale waxa weey doorashadii aan tartanka kula jiray oo duqa magaalada ahaa xubno badan oo aniga ay dooran lahaa oo 5 xumood ilaa meelahaas baa waxa weeye intii meeshii laga saaray waxa lagu bedelay xubno kale musharax ila tartamaya oo isagu favor ah isaga doorta marka musharax ila tartamaya hadii la xubnood loogu daray وسايد والشرح منون أنا لا يقال سأل لو دري الدمر واحد الموضوع واحد دولد هو ترقى شيء إنه مشرح الصبح حم بدن باجرنا هذا فرق بدن إن دولد رتي إن دورشة مشرحة إلى ترتمية وصبح ما قرن كرسابة الرئيس كايت هاي سابت وحوي مرنا ننوي إنه أضيع ويارنا بدن له وصومري وحن كوجر سنتي أضيع أهري وما ممكن 91 كي وحكا قبتي ما ممكن نورد إست الجري وبلاد وقوي جنبرك أنا أساسي قدومي هوري أنا نقضي قرعست أنا ها نين إنجنير ها وحنا مركب ماشي معنا أي وساس النصيب حوي شيء قف أقوان له وحكي بدري كلام بنان كنا وحسوا برتي لكن نصيب ده روح نقطي إلى أنسى الوقران وحوي اللي يسكت يه إلى وحوي عيد دوران له للجوجي وحنا مركب سوى جيدنا إياه وأن دعوتك قباء ودي قد دور الشذا خلافات لو صدري ود عدالة ما هين وحن مدحونا ويدي سنايا وحن كوات كينايا إن ود جاس خلافات كنا اللي بدلوه
doorashadana dib loo dhigo si doorasho xalaal ah oo dadka deegaanka ah oo dadka waxa weeye taxi baayirka ay maartay wakiilka ah in la keeno haddii kale waxa jira teoriya leeysa no representation no taxi buyer no taxation qof waxa weeye aan wakiil meel ku lahayn haddii qof cashuur bixiya ma noqonayo adduunka iyo caalamka waxaan u sheegayaa international community donorska in doorashada beri loo dhoodhoobayo oo la rabo inay beri ka dhacdo boosaaso inay yihiin midii dadkii deegaanka maslaayay inay yihiin dad la soo dhoobay oo dowladdu gacan ku lahayd dadka maslahaana ayan jirin waxa weeye international community weydiisanaynaa inay ilgaaroo yeelato haddii saa loogu maro waxaan si rajaynayaa oo aan ku caloolfiyoobahay inay beri doorasho dhacayn in madaxweynuhu fahmi karaayo maxaa yeelay haddii saa ku dhacdo dib badan baa jirta waxa weeye dadka qabaa'ilka boosaaso degan oo ku jira deegaanka boosaasood waa 16 qabiil maanta waxaa shir jiraad isugu yimi oo shir jiraad qabtay in ka badan 13 qabiil oo waxa weeye cabanaya weli waxyaalaha qaarkood haddaan soo qaato aan weligay ilaawi karin xubnaha waxa weeye laga bedelay waxaa ka mid ah nin aniga campaigner ahaa oo xildhibaan ahaa oo ila shaqeynayay oo nin mutacallim ahaa jaamac cilmi baa la dhahaa ninkii saacadda u dambeysay oo doorashada dhici lahayd baa la yidhi nin kalaa kugu haysta oo reerkaaga ninkaa waxa u saxiixay 11 nabadoon waxa u saxiixay beeldaajihii beeshiisa wixii hoose ku dhacday ciidamo ma jirta waxay dadka keenso dib uu noqday intii uu keenay beeldaajina telefoon buu waxa weeye gudda uu sheegay ninkaa waxa isnaa 100% waa la iska dhaafay ninka waa la reeb haddii taas u dhacday waxa dhacday marka in ninkii iyo waxa weeye iyo ciddii u dhaweyd intay xanaaqaan ninkii xildhibaanka lagu bedelay ay shalay khatar isgeliyeen oo bistoolad intay qaateen ay halis geliyeen inay isku dhacaan labadii jifiyood wax yar buu kaga baxsaday bistoolad madax ka qaraaceen saan maqlay anoo ma joogin baawurkiisina waa ka qaadeen waa in dib loo dhigaa waa in guddiga khilaafaadkana la bedelaa oo dad daacada la keenaa guddoomiyaha baarlamaanka waxaan weydiinayaa oo ku adkeynaya horey gaari mayno waa horaa waxa weeye 12 sano oo dictatorship baynu soo martay waa ku burburnay waxaan weydiinayaa in sharciga wixii sharci ah iyo wixii dastuurka isaa ka wakiila haddii wixii aan sheegay ay run tahay inuu soo dhex galo inuu wax ka qabto maxkamadaha haddaad tii kuwa shaqeynaya waxa loo baahan yahay inaad soo dhex gashaan waxa weeye labada xubnood oo saayidka oo lagu daray xalaal ma waxa taa ka daran oo haddan maqlaayay maalmahana laba xubnood oo kale waa lagu darayaayo 1 baa laga dhaayay anuu ma hubo laakiin marka walka suuqa marka meeshii wax iska noqotayba waa qofba markuu riyoodo inuu wuxuu rabo iska darsanayo ama qofku wax la jecel yahay wax ugu daraayo taana horumar lagu garamay dastuur bayn leenahay aan ku heshiinay dastuurku waa in la ixtiraamaa haddaan la ixtiraamin waxay noqonaysaa waxa la jabiyay qaynuunkii iyo wixii heshiiskii ummadda ku heshiisay mar labaad baan celinaya mar saddexaad baan ku celinaya madaxweyne gaas anoo waxa weeye markaan ka imaanayay bannaanka dadka sympathy u hayay ama niyadda fiican u hayay ama difaaci jiray oo nin aqoon-yahan oo professor oo iyo siduu ugu doodo dastuurka federaalka uu adag yahay waxa loo baahan yahay Puntland inuu ku adkaado waxba tari mayso federaalkan ku adkaay haddaan lagu adkaan kan gudaha arrintaas beerow ka hadleen oo maanta media laga sii daayay haddaan wax laga qaban oo doorasho aan dib loo dhigin wixii ka dhaca oo dhibaato ka timaada waxa mas'uul ka ah wixii aan waxba ka qaban oo aan joojin doorashada dib ha loo dhigo waxa weeye guddiga khilaafaadka aan la ka bedelo saasay xalaal ku noqonaysaa waa jeclahay Puntland ma jeclin dhibaato ku dhacdo mana jeclin wax xaq darro ah iyo sharci darro ah inay ku socoto والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ولا حرني قلت خلافات كوالله حريرني وأوتقني قريهود أوتقني وأوشيقني حبنو إني عدالة يكون عدو وأنا ركب لنقاضي وحبين كحمان ما أيام باليري وحن حسوستا إن حمنتي إذا كم بدها بواحد يري وإذا دت كان لقيت البدنية هيئة وحوي aan lahayn qabaayilka hubaysan aan ahayn ba waxaan maqlay ninkii waa la bedel
أنا ويدي واحد سوء وقاعدي واحد وحبك من جيران قبل كجوا حدي أن لسود جينا نكاسنا واحد ودي جاي سجنا سداد نبضون يوحى ويه وحجرت كودي حدي لسود جينا نكي واحد لقوا بدلي نين وسيركوين كمارية ده حوهين واحد والله والشرعي بقى مرة شغالة ويه ولو إنه مرسم وما أقوله نقف كاس النقطة مرة نعيد صحيح ما جرت ولو أنت لو وضع يري لبا إنه لبا قفتي لو وضع يري فكنا وحكينا إنه بدنا نضرن كنا عندنا أسكين لكن كي كلا صوب حي مركب واجرتا وأنا كلامنا وكره هذا الني وحلا يقتل مجد. كمان الشنا هذا الشيء تدور جرح صوها هذا الحين اللي وانا يتعجزن اللي وانا ميريكا إحنا شارحين تدور تبسبيلا. حلمان واحد دورتي بيرها لكن waxa sameeyay program kaaga waxa sameeyay waxa qabanayso waa yaaragnimada marka qayb baa waxay ku noqonaysaa adeeg maartay sympathy ku haynaysa qayb baa kula jeclaanaysa in codka ku siiso waa la kala yaqaan waa waxa lagu kala baxo qaybteedii waa la kala yaqaan oo birsadeeda fadhiday oo targetka aniga ahayd oo qabaayil kala gedisan ahayd baa shan xubnood oo kamid ah baa iga maqan marka hadii musharaxii iga horeeyay laba xubnood ay dheeraa laba xubnood aan xalaal ahaynna ay saayid u ahayd shantii xubnood aanu lahaana shan xubnood si loogu bedelay hadda marka waxa weeye waa odow jeega jiica ka dhigay mood meesha gabagaba ka dhaaf gabagabadii hadii sidaan ku socdaan doorashada Brilo Monday ay qabsanto ka qayb galaysa ku sharxan doorashadaas si soo ما doorasho ma aha waana xataa maanta dhaartii ma tegin kaba qayb gelin waa qaadacay hadii saa ku marto hadda cawaaqibkeeda waxa weeye waa wixii ka soo baxay anuu dhibaato ma qabo anuu company may flower dhaho baan waxaan ka general manager waxa wiilin waa ka ah anuu noqonayaa meel aan ku noqon leeyahay mood laakiin waxaan ka naxaa dadka dan yarta iyo dadka waxa weeye maatada iyo dadka waxa weeye xuquuqdooda ka maqan tahay dhibaatada meesha hayso dadkaas aan ka naxsanahay ma ahay anuu dhib qaba ma ahayn laakiin waxaan rajeynayaa inay dhicin waxaan rajeynayaa dadkii caqliga wariga Puntland waxa aan jirtay markii khilaaf dhaco caqliga shaqayn jiray ismaha shaqayn jiray maskaxda fiican baa soo noqon jirtay waxaan u maleynayaa inaan biri doorasho dhacayn dibna loo dhigi doono maxaa yeelay xalaal maaha dhowr iyo 10 qodob baan ku haynaa ee xalaal ku ahayn waxaan isku dayaynaa inaan la aadno gudoomiyaha baarlamaanka waxa maqnay inuu saak soo galay oo u tageynaa maxkamadan wala aadina haday tahay waxaan maqlay markaan Mareykanka joogay ku dayo Puntland haday ku dayo Puntland tahay xuquuq waxba soo bixi doona moot wala arki doona haday si ku dayo Puntland dhalanteed tahayna wala arki doona waa sharci waanu shaqeeya qofna wuxuu roma sameey karo kama qayb galayso doorashada doorashada deesaa u gashay kama qayb galay absolute ka qayb galay